subax kasta waa bilow cusub, waa fursad cusub oo Allah ku siiyo ka hor intaan la falgelin dunida iyo buuqeega. Istaag hal daqiiqo oo xasuusnow cidda ku siisay neeftaada aad qaadanayso. Qaado 10 daqiiqo oo akhri Qur'aanka Kariimka. Maaha keliya akhris, waa dawada qalbigaaga, waa nuurka naftaada iftiiminaya. Ere kaste waa fariin toosa oo ka timid Allah. Markaas aad samayso adkaarta subaxdii dheh subxaanallah, alxamdulillaah, Allahu akbar. Kuwani waa erayo fudud balse waa gaashaanka iimaankaaga ruuxdaada oo ka ilaalinaya murugada iyo walwalka. Haddaba qofka subaxdii ku bilaaba hadalka Allah wuxuu helayaa barako iyo xasilooni. Wuxuu sidoo kale helayaa iyo hanoon iyo iftiinka gudihiisa oo ka dhigan tallaabo kasta oo qaadayo mid fudud oo macno leh. Haddaba ha ka tegin subax kaste akhriska Qur'aanka iyo adkaarta subaxdii.